aniga markii aan u tartamayay state representative dadka badanaa maynan aaminsaneen waxay dhihi jireen waqtiga maxaa iskaga dhuminaysaa ilhaanay ma ku suurtagelayso waqtiga maxaa iskaga dhuminaysaa ciyaalkaaga iska korso ilmo yar yar haysataa walaalay ilmahaaga iska korso waan ogaay in ay suurtageli karto idinkoo dhanna waad aaminteen waad garab istaagteen ilaahayna guul uu nagu siiyey aniga in aan fursadaasaytii aan helo alxamdulilah maalintii aan go'aan ku gaaray in aan congress u tartamo Keith Ellison uu yiri attorney general aan u ordaya waxaan xasuustaa Soomaali badan qaar qolkan ku jiro oo dhahayo miro guntaada kuugu jiro mid geed saaran looma daadiyo kulligood waxay dhaheen walaalayaal dhageysta Keithna kursigiisa ha ku fadhiyo congresskiisa naga joogo adigana meeshaada fadhiyo state representative no ahaaw hal kursi aan haysanaa kaasna hal kursi aan haysanaa yaanan beelin alxamdulilah ilaahay go'aan gooni uu leeyahay annaga waxbaan ku tashanaa laakiin ilaahay taladiisa waa mid gooni ah ilaahay wuxuu ogaa in aniga ay iga dambeyn doonaan Hodan Xasan oo state representative no ah in Maxamuud Nuur uu iga dambeyn doono in Umar Faata aan doono in alxamdulilah maanta saddexdoodii oo kursigoodii ku fadhiyo laba kaleeta aan ku darsanayno Samakaab iyo Zainab ay socdaan taasna waxba maanan ku weynina waxba noogu saa'iiday ilaa anigana korkaas waa ku raayay Keithna attorney general uu noo noqday marka maanta aan isweydiino sababta annaga codkeeni qalqal ugu jiro sababta Keith Ellison uu maanta Soomaali u baryaayo uu Soomaali u dhahayo kaala ii soo baxa sidii aniga kursiga aan ku fadhiyo aan idinku sii fadhiyo idinku matalo qofka kaliya muslim ah Minnesota kaliya aanan ahayn waa meel kasta America hal qof muslim attorney general ka ah waa muslimka jagada ugu weyn America ku fadhiyo marka ma ahabo inuu Keithna baryo annaga waxay ahayd in saf dheer aan galno oo annaga aan Keith dhahno goormay ku soo codeyn karnaa intee mari karnaa yaa register gareyn karnaa meeqa lacag u baahan tahay Keith maanta inuu lacag dadka baryo Keith maanta inuu cod baryo Soomaali iyo muslim uu ka baryo waa wax calool xumo ah aan loo dul qaadan karin inta kaliya intaas ay ku suurta gashayna waxa waaye dad kastoo aniga mana idinka xishoonahay canyaasiin ah waxa laga soo dhaadhacsiiyay in annaga dadkii muslimkana matalayay oo aan rafaadka ilaahay ogaa aan u soo galnay in maanta aan helno Minnesota inay noqoto state-kii dadkoo dhan tusaale u noqday maanta annagii inaan noqono dad tuugtamaayo dad laga dhaadhacsiin karo dad walaalkood ah ku jinsi ah ku diin ah oo inta ilaahay ogaay rafaad u soo maray oo noloshoodii badbaad u laa oo maalin ilaahay keen lacaynaayo oo journal kasta xumaantooda lagu soo qoraayo daraadeen muslimnimo jinsi ahaan ay nagu dafaacayaan in maanta annagana laga dhaadhacsiiyo kuwan aanoo daran say ku suurtageli kartaa aniga adaan kugu abtirsadaa turjubaan miyuu baahan tihiid marka aniga ila hadlaysid hadda Soomaaligayga aad uu sii fiicnaadaybo aniga turjubaanayga ma baahan tihiid fiiri maanta jidkaas haddaa maraysid aniga aan kaa soo horbaxo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jira ii sheegan kartaa Maxamuud hadduu kaa soo horbaxo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jira u sheegan kartaa Hodan hadday kaa soo horbaxdo wixii aad rabtid oo calooshaada ku jira u sheegan kartaa ma haysataa dad kale oo saas ku yeeli karo qof kasta waa inaad turjubaan u raadsatid fiiri boqol Republican ay wataan oo waxay ku leeyihiin kaale u coday turjubaanay soo ijaarteen oo Soomaaliya oo annaga nagu abtirsado marka bari marka adiga wax ka doonaysid turjubaan u baahan tahay ma annagii oo haysano qof annaga aan u tagi karno oo codkeena ugu hadli
karno afkeena ugula hadli karno oo danaheena already og ma nalaga dhaxsiinaa maanta qof kale ku bedel oo qof kaaga turjubaanayo ما أنا لقنا دعسينا ما أنت قف كله كبدل أو أبري يسيد أو أده يسيد شيء غير أو كله يسيد أنا قودن تبلو عنك إماضي ساني سان واي فارهيجا نبكانا قبا عيال كي سكول سانا لو دبا بيكوس قماري حرتا قبارك أنكو في السرو محا كهدلينا محا كهدلينا من يابلس عيال كي سكول كي دكتان ما أنت وحنا هيسنينا لبا سكول بورد ممبر haddii iskool iyo ciyaalkaaga iyo waxa laga dhaadhacsiina lagu dhahayo laba qof aan ku joogo oo afkaaga ugu hadli kartid oo hooyo iyo aabe Abdul wiilashiisa ayaa dhawayta door albaaba ila garaacay wiilkayga way gihiin uma baahan tihid qof inuu kaaga turjubaano Abdul markii uu ku fadhiyo city councilka min school boardka Somaha il badan ay haay muxuu il badan yahay waay ما أنا هذا صف صومالي إلى ترتماي كيف تدوه ولا ترتماي نكلو مسلم أو صومالي وفهمينا وح قرقرتن وإسجيجيرن جرني أوكي واي كاس لكن وحس كمان لوينو وحن كهاد لوينا قول أن قارني أنك أو الدنيا أو دم تصالح إنه أركان عد ما تربتين إلى دادسين ما حد ودادين يسين ضاع وح إذن كذا دعسينويو سؤال بدر أجردت كمركي ويديان أربعة ستوير إن إذن تابتو maxay dadkan idin qabteen su'aashaasaytii waa su'aal kisto jahwareersan waxayna u jahwareersan tahay ma qofka waxbuu ku qabtay adaa og mase ma ogtihid fiiriya aniga shaqaalaan ahay city councilka aan u shaqayn jiray meeqa qolkan ku jirto xasuusato 7 sano ka hor in maqaayadaheena loo ogolaaday ramadaanka intii ay rabaan habeenkii inay furnaadaan kulligiina xasuusatiin uma maleynaa dadka gadaal fadhiyo wax oo madaxooda luxooy ma arkooy ma xasuustiin soo maaha say ku suurta gashay waxay ku suurta gashay waxay Keith, got the mess there. Hold up, Keith, I gotta finish this. So, to the Masara Kor Meheku Surta Gashay, Gabar Muslimat ka shaqaynaysay. Wiilal Muslimin oo Soomaali ay yimid waxay dhaheen abaaye bisha Ramadaanka lacag badan ma suubino. Soo maaha maalintii oo dhan waan xirannahay. habeenkii intii aan furnaanaheena way nagu xiran tahay especially meelaha siidar oo kale markii ay maqaayad nooga furan tahay 10 o'clock ka badan ma furnaan karno ma noo fursameyn kartaa sidii aan ku heli lahayn in bishaas la suubiyo wiilkii aan u shaqaynayay Andrew Johnson la dhahayo ordinance-ga qoray waan pass garaynay maqaayadaheena ramadaanka intii ay rabaan ay furnaan karaan intii iyaga ay rabaan maanta aadaana ku yeerayo 12 sano ka hor state Minnesota maali ilaahay keen waxa laga khaylin jiray shariiyo loo maanta aadaana dhageysatiin reer siidar saad ku dhageysatiin aadaankaas ma qof waxa idin keenay aan Soomaali ahayn oo Muslim ahayn maya Jamaal Cusmaan idin keenay city council koodi kugu fadhiya fiiri okay sug waa dhamaysanaya building public housing yaalkaan aad degantihiin ayaan dhaxdaas dada ku dhintay ma xasuusatiin markay dadka ku dhinteen maxaa la ogaaday sababtay u dhinteen waxay ahayd sprinkler bildimada ma lahayn Somaha $2 million aan keenay aniga bildimada oo dhan hadda sprinkler la gelinooya marka dhahdeen maxaa noo qabateen isweydiiya ma aniga ogeyn waxa la qabtay mase wax ma lii qabanooyo Keith Ellison Congress markii uu tagay wuxuu ahay qofkii Muslim ugu horeeyay oo namatalo hearing-yaalka markii la suubiyo meeshuu soo fadhiisan jiray oo la dhahay annaga dhan terrorist aan nahay wuxuu xasuusin jiray dadka in aan nahay annaga shaqaale in aan nahay aabbo hooyo dad ka mid ah wadankan in aan nahay waa ooyay TV-ga oo kaamirooyinka oo dhan fiirinayaan uu ilmeeyay asoo qof weyn ah
muxuu ilmeeyey dhibkeenu og yahay annaga dareenka adiga aad dareemaysid uu ku dareemayaa because asiga waa qof muslim ah oo ilmo wadankan ku korsanaayo marka maanta ha ogolaanina igara leeyahay hadaan qiiliyeyna ha ogolaanina in la idinka dhaadhacsiiyo inta dadoo muslim ah haysatiin oo habeen iyo maalin ku soo kaco kuna seexdo in idinka ay idin difaacaan in idinka waxay idin soo dhiciyaan in ciyaalkiin ay ka shaqeeyaan iskoolsay ku heli lahaayeen in idinka aan discrimination iyo midabta koor la idinku suubin in idinka airboryaalka aan la idinku qabsanin idinkaan idin dadaalnaa anaga wax kale uguma fadhino booska aan ku fadhino marka haddii aadan ku fikiraynin oo ama aad taqaanid qof aan ku fikiraynin inuu kiis u codaynin waxaan u baahanahay intii aan hadda idin sheegay in aad u sheegtiin in aad gigishiin in aad ka dhaadhacsiin wax qalad dadkan in laga dhaadhacsiiyay in la rabo iyaga in guushi ay gaareen iyo waxyaalihii badanaa ay ku tashanayeen laga qaado maanta meesha aan joogno meel aan ka laaban karna ma aha waa meel aan u baahannahay hore inaan u sii baxno in aan idinku tashana u baahannahay dadkiinaan qolka ku jiro